annaka waxaan ka hor imaadsanaa wax ama beenteynaya ama wax u dhimaya wada jirka aqoonsiga iyo wadanimada Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo wadan kasta. Marka tan hadda maanta ku dhacday Soomaaliya waxay ku dhici kartaa wadan kale. Meel kasta qalaas baa ka jira, isgafitaan baa ka jira, way ka jiri jireen, way ka jiraan hadda wayna ka dhici karaan. Marka tan aan leenahay waxa weeyaan walaalkeen Abi دستور كودن كاسكجر وحاول أنا عدك بيل كستوى هيك يتشن كرام وودن كبيح كرام وقت جاي دوران يعني واكره هيسا سدام باي نقول هيسا وقت عفار باي كجرتا وقت الصومالي باي كجرتا وقت كلا باي كجرتا تجري مر أحمر مر أورمية سدام باي وريك توتي مركب من دعي كرتو الرماح وحساسي جودن كاسكو حساب صن إن الوفولية الرماح كلا أو ودن كلا كدعة marka waxaan leenahay abi dadweynaha Soomaaliya xadudkooda jiritaankooda aqoonsigooda mid bari ah maaha waa mid ay United Nations ka ay aqoonsanta waa mid ay aqoonsanta African Union waa mid ay aqoonsanta the Organization of Islamic Conference waa mid ay aqoonsanta the Arab League وامد أقونسنت حتى the East African Community ما وامد أقونسين ودمها دنا جيران كلا مركز تيم وح ميل ودعي أنك ما ضحت دان نحني كينيا نحني ما أقلان كرنا وحن كلنا أرنتاس وامد قلدا أنا لنا مدحوينا ودن كينيا حن قعد سنينا مدحوينا ودن كينيا مداني دكتور ويليام ساموي روتو إنه سيد ودق صوب بدن شر دق هو إيجاد ويره arrimaha Ethiopia hadda ay ka soo binaayay Soomaaliyana ajena laga dhiga loogana hadla si dib looga noqon lahayna tala looga gaara taa waxaan u maleeynaa waxay ku jirtaa nabadgelyada Kenya nabadgelyada regionka dhan iyo nabadgelyada Afrika iyo adduunka dhan mana doonayna qalalaas cusub oo hadda waqtigan 2024 ka furtay regionka ku xisaabtamay inuu heshiis intuu la galo gobol oo wadan ku qabsan karo waxba ka sikay مسكح يا عقلي يا حسابتي الأول شقية اللي باهي ماشي عقلي أنا ما تشرو مسكح أنا ما تشرت سومالي لان قبل كي وقوي وصوماليا وياه شعب كده جنا ماشي يجي شكل المركز لا شيء ما أنت كجس إلا كجس وهي ديار ويهين أي نفط وضو فرنتاين وحن عمباريين هينا وندي هينا una sheegahayna midda iyada ee waxba kama faa'iideystay hadda tahay Ethiopia hadda tahay Prime Minister Abiy Ahmed rajo badan baan ka qabnay ninka laakiin sidaan hadda u dhaqday waa hawiyaan waa si yar oo carruurnimo ay u dhaqdeen